labadaba waxaa laga oofinayaa xadkii qasaasta ahaa waxayna nolosha si bareer ah u dhaafiyeen muwaadiniin ay ood iyo ceesh wadaag ahaayeen. cabdijamaal cabdulaahi xayle waxa uu si bareer ah u dilay marxuum cabdixakiim maxamuud khaliif. marxuumka ayaa ku howlanaa dib u habeenta iyo wax ka beddelka hoy uu ka deganaa Wadajir, waxaana howlwadanadii ku howlanaa bilic soo celinta dhismaha shaqada ka joojiyey cabdijamaal isagoo u dan leh in laga baadsiiyo guriga. marxuumka ayaa isna iska diida sidaas ayuuna xabad uga jaro wadnaha. cabdishakuur axmed maxamuud ayaa isna nolosha dhaafiyey xasan maxamed shire. waxa ay wariyeen maragyadii la dhegaystay xilligii maxkamadeyntiisa ah in si ku talagal iyo faraqabad ah uu ku sii daayay xabado saaxiibkiisa ay booliiska ka wada tirsanaayeen. maxkamadda ciidamada ayaa hore ugu xukuntay dil toogasho ah labadaba, waxaana laga oofiyey bilowgii maalintan xadkii qasaasta ahaa. sida toogashada kadib uu fagaaraha iskool booliisiya ka sheegay maxamed cabdulaahi khaliif, xeerlaaliye xigeenka ciidamada qalabka sida. waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanay cabdijamaal cabdulaahi xayle 32 jir ah ina xaadsan wacays ku dhashay Sablaale ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareera ula kaca u dilay marxuum cabdixakiim maxamuud khaliif taariikhdu markay ahayd 16 bishii 7 2012. dilkaasoo ka dhacay degmada Wadajir, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaasta marxuum cabdixakiim maxamuud khaliif taariikhdu markay ahayd 22 bishii 9 2013. sidoo kale waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane ex dable bool cabdishakuur axmed maxamuud 29 jir ah ina kaaho takar warsame ku dhashay Galgaduud ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareera ula kaca u dilay marxuum ex dable bool xasan maxamed shire oo ka tirsanaa guutada VIP ilaalada madaxda ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 31 bishii 1 2023. dilkaasoo ka dhacay degmada Wadajir, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum xasan maxamed shire taariikhdu markay ahayd 5 bishii 2 2023. maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii 3 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa 1 ex dable bool cabdishakuur axmed maxamuud 2 cabdijamaal cabdulaahi xayle. wabillahi tawfiiq. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute iyo jenaraal liibaan cali yarow ayaa fagaaraha fulinta toogashadan goobjoog ka ah, waxaana waajibkan gudashadiisa qaatay ciidamada gaarka ee haramcad iyo koofiya casta milatariga. cabduqaadir ciise, warbaahinta qaranka, tiirarka cadaaladda.